kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baa khayarta naga daawanaysa Home Cable TV kuna soo dhawaada barnaamij documentary ah oo aan kaga hadlayno sidee Soomaaliland loo horumarin karaa. barnaamijkan oo aan wax ka weydiinay dad fara badan oo aqoon-yahana oo reer Soomaaliland waxa ay ka yiraahdeen sida hadaynu ka hadalno in horumarka Soomaaliland sidee baynu kana samaanta meeshan aan joogno hore uga mari karaa sidee baynu dalkeennii haddii la yiraahdo dhalinyarada shaqo uga abuuri karnaa sidee baynu heli karaa haddii la yiraahdo in aynu dalka wax soo saar u yeesho oo magaranaysa dibadna wax dibadaha loo dhoofiyo waxa weeye sidee baynu u kordhin karaa income-keena marka horta marka hore horumarka oo dhamay wuxuu ku bilaabmaa tacliinta marka dhalinyarada ragga iyo dumarka ragga iyo gabdhaba in horta tacliinta runtii ay xoog saaraan oo aad iyo aad tacliinta loogu jilciyo oo magaranaysa access ay u helaan inay ilaa intay jaamacadda ay ka baxayaan aanay wax arqaladii ka hor iman waxa la caawin karaa haddii bini'aadamku uu waxa la yiraahdaa brainstorming ama maskaxdaha uu isu keeno oo la wada tashado waxa laga helayaa dad fikrado fiican keena balaana ula yimaado qorshadaha hay'adaha wasaaradaha iyo ganacsadaha magaranaysa waddanka oo dhan qofkii marka la yimaado business shaqeynaya waxa laga yaabaa inuu ninka ganacsatada ama shirkadda ama hay'adda ama wasaaradduba ay ka faa'iido fikradiisana dibadna lagu fangareeyo maxay sida sample oo kale waxaan ka soo qaadi karaa deegaanka oo kale deegaanku wuxuu sameeyay xoolo dhaqato beeraley wuxuu isku xidhan beertii iyo xoolihii ay isku xidhay waayo deemika qofkii isagoo beertiina samaysanaya oo raashinkii iyo wax walba iyo wax walba oo deegaan noqdo degay ayuu xoolihiisina haystaa dawaan nimco ku darso weeyaan marka imika for example aad aragtid inaga maanta waxayna haystaa abaar xun bay nagu dhacday dad xoola raaca meesha xooluhu biyo ka raadiyaan oo raaca galbeed iyo bari meesha doonaan baa noqotay ayay haayeen maxaa maanta qabsaday xoolihii way ka dhamaadeen iyagii maxay noqdeen cayr bay noqdeen haday beer lahaayeen xoolo dhaqato ahaan lahaayeen may dhacdeen anigu waxaan qabaa haddii ay inaan lagu eegin horta dawladdu mooda shaqo gelin karto 1,000 qof ama 2,000 oo qof oo sanadkii ka soo baxaya jaamacadaha waddanka waxay u baahan tahay in ay ka qayb qaataan baac mushtarku shirkadaha waaweyn ama dadka dhaqaalaha haysta ee Somalilanderka inay ka qayb qaataan shaqagelinta dhalinyarta oo ay ka faa'iideystaan cilmigooda ay ku soo barteen jaamacadaha iyaga oo markaa ay tahay in iyaguna la yimaadaan projectyo waddanka wax lagaga qaban karo sida biyaha biyaha la celinayo ama beeraha ama wax soo saarka macdanta projectyadaasoo ay weliba ay lacagta inay tahay in lagu invest gareeyo oo ay ku dhaqaalayaan iyaguna faa'iidada ay markay helaan ay soo celiyaan lacagtaas